waa goor hore oo subaxnimo sabti ah 13 bishii Diseembar sanadka 2003 waxaa la qabtay madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddam Hussein iyadoo ay gacanta ku dhigeen cutub ka tirsan ciidamada Mareykanka iyo kuwa gaarka ee dalka Mareykanku isagoo xilligaas Saddam ku dhuumanayay god maqsin oo kala ah oo ku dhex yaala beer ku taala duleedka magaaladii uu ku dhashay ee Tikrit. Saddam Hussein waxa uu ahaa madaxweynihii shanaad ee dalka Ciraaq isagoo xilka qabtay sanadkii 1979 isla markaana hayay ilaa sanadkii 2003 taasoo noqonaysa muddo aan ka yareyn 24 sanadood waxaase uu ahaa mid dhuumasho ku jiray tan iyo intii ay ciidamada xulafada Mareykanku gudaha u soo galeen magaalada Baghdad ilaa ay ka qabteen godkii uu ku jiray iyagoo aan la kulmin wax iska caabina iyagoo helay isaga oo keligii ah. saacada kadibna waxaa telefishinada caalamka laga sii daayay iyadoo askartii Mareykanku baaritaan jireed ku sameynayaan si ay u xaqiijiyaan inuu isaga yahay. muddadii rubuc qarniga ku dhaweyd ee Ciraaq xukumayay Saddam Hussein waxa uu ka hirgeliyay barnaamijka horumarinta iyo barwaaqaynta dhaqaalaha ee dalkaasi ilaa uu Ciraaq ka dhigay meesha ay gaaritaankeeda soo higsadaan dhammaan dadka shaqadoonka iyo kuwa dalxiiska doonaya. haddaba barnaamijkeedan xogta dahsoon waxaynu ku soo gudbinaynaa tafaasiil dheeraada oo ku saabsan qaabkii loo qabtay Saddam Hussein. korneelkii watay cutubka ka tirsan batalyanka afraad ee ciidamada Mareykanka ee u xil saarnaa qabashada Saddam Hussein ayaa waraysi uu bixiyay waxa uu ku sheegay in muddo 8 bilood ay wadeen baaritaanka ay ku raadinayeen Saddam Hussein iyo raggii kale ee liiska kula jiray iyagoo meel kasta u dhacayay oo cid kasta waraysanay. waxaana korneelku xusay in Saddam uu isdhiibay ka hor intii aanay bomba gacmeed ku tuurin oo ku ridin godka gudihiisa isagoo si degdeg ah ugu dhawaaqay inuu yahay madaxweynihii Ciraaq kuna hadlaya luqadda Ingiriiska. inkastoo warar kale oo laga soo xigtay turjumaan Carabi ahaa oo ciidanka la socday ay sheegayaan in ciidanka Mareykanku ay godka ku rideen agabka sunta ee dadka yara suuxiya qadar ilbiraqsiya ka hor intii aanay godka ku daadan oo qabanin Saddam Hussein oo suntaasi ku miir doorsoomay ayaa haddana korneelku waxa kale oo waraysigiisa ku sheegay in macluumaadkii dhanka sirdoonka ay ku qabteen Saddam Hussein aanay anfacdeen howlgalkaasi muddo 4 bilood ka hor. waxaana intaa raaciyay xogtii ay ka heleen dhismayaal ku yaallay magaalada Tikrit oo ay u dhaceen taasoo ka caawisay helitaanka meesha uu ku sugan yahay Saddam Hussein iyadoo dhulka loo yaqaano saddex geesoodka Sunniyiinta ee dalka Ciraaq oo ay ku jirto magaalada Tikrit uu ahaa meelihii ay ciidanka Mareykanku kala kulmeen wax iska caabintii ugu adkayd ayaa dhanka kale howlgalkii lagu qabtay Saddam Hussein waxa uu ahaa mid aan u fududayn ciidankii Mareykanka ee dalka Mareykanka kuwaas oo aan wax aqoon ka haysanin dabeecadaha saxaraha iyo qabaa'ilka ku dhaqan. waxaase xogtii ugu cusleed ee ka caawisay qabashada Saddam Hussein ay ka heleen ninkii u ekaa Saddam oo ay u qabteen Saddam ahaan laakiin markii ay baaritaan ku sameeyeen ay ogaadeen inaanu isagii ahayn. warbixin muhiim oo ahayd oo ninkaasi siiyay ciidanka Mareykanka ayaa waxa uu ku sheegay in Saddam Hussein uu ku dhuumaaleysanayo saxaraha galbeedka ama waqooyiga ka xiga magaalada Tikrit isagoo si gaar ah u calaamadiyay meel 10 mayl u jirta magaalada Tikrit halkaasoo dhab ahaantii noqotay beertii uu Saddam Hussein ku dhuumanayay. Colonel James Hickey taliyihii cutubka ka tirsanaa batalyanka afraad ee ciidamada Mareykanku waxa uu sheegay in markii la shaandheeyay xogihii basaas ee ay soo ururiyeen iyo sawiradii lagu qaaday aaladda dayax gacmeedka ugu dambeyntii 4 habeenimo si rasmi ah loo calaamadiyay meesha ay beertaasi ku taalo kadibna la diyaariyay kaartadii lagu weerari lahaa beertaas iyagoo filayay inay beerta dagaal kala kulmi doonaan ayaa waxay diyaariyeen ciidamada Mareykanku 100 askari oo ku gaashaaban gawaarida dagaalka. ugu dambeyntiina ciidanka Mareykanku waxay soo gaareen gurigii yaraa ee beerta ku dhex yaalay laakiin ma jirin wax ciidan ah ama dad rayid ah oo ay ku arkeen laakiin si degdeg ah askari aan markii dambe magaciisa la shaacin oo ciidanka la socday ayaa arkay dun dhulka daadsan oo tilmaan u ahayd godka afkiisa. markii ay daboolka ka qaadeen godkaasna waxay si degdeg ah u arkeen cadaanka gadhkiisa. xilligaana waa markii ay askarta Mareykanku dooneen inay bomba gacmeed ku ridaan godka laakiin waxaa hadal dhaadheer oo luqadda Ingiriiska ku hadlay Saddam Hussein oo isagu sheegay inuu yahay madaxweynihii Ciraaq Saddam Hussein al-Tikriti sidaasaana lagu qabtay Saddam Hussein.